Soomaaliya al-shabaab barhaysata riijo kooda waxba ka jira gobolka mid ah xamse ninka la yiraahdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xasan sheekhna gef bay ku sameeyeen 34 sanadood maxay u tagi waayeen 4 casho joogay dee 4 casho xuduud laguma sameeyo laguma sameyn karo laakiin qaatuma 4 casho ka horeysay dee maamulka khaatumay dadka inay ismaamulaan issue wan ma maqbalsantiidin marka dadka inay ismaamulaan waa dagaal ifad qalalo waxa weeyaan aqoonsiga sheegayaan ma maxaa ka qaban kartaa ma oran kartid su'aasha ma oran kartid waxa weeyaan deegaanka laascaanood deegaanka Soomaaliya ka mid yahay waana wada degnaa anu dadka deegaanka mar walba waan dhawrina san ku sheegay teeshanka la dajiyo intaas dawladda Soomaaliya ka shaqeynaysa anu colaad kama shaqeynayno laakiin waxa colaad ka shaqeynayay ninka intuu xamar ka soo cararay diyaaradii laascaanood ka soo degay 34 sanadood qof Soomaali ka yimid halka ka soo degin ayuu yimid oo macna maxaa la yiraahdaa laascaanood soo degay niman ku furan iyo ku raray waxa weeyaan xamsan nabad kama keeni kara laascaanood wuxuu ka tari kara male anagu Soomaaliya kama go'ayno aan kalmada ku saxo waxaween Soomaaliya anaga naga go'aysa hada faanta Ali Khalifa ilaa naxariiso qofkii ugu mudnaa eeriyadoo dhan ayaa hogaaminay khaatimo de waa laga wada heshiis baa laga galay heshiiskina uu yaala maanta marka macnaheedu ma aha inaan UN ka fadhiyo baan dawlad noqonay de xamar bay kursiga UN ka way fadhida xaaladeedan oo inaguna maanta al-shabaab ma afarta koon xamar ka taagan kula wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada BBC Soomaali sida aad la socotaana Somaliland ayaa dhawaan soo saartay war saxaafadeed ay uga falcelinayso heshiiskii is-afgaradkii ay hore u gaareen SSC qaatuma iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib booqashadii uu laascaanood ku tagay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre war saxaafadeedka Somaliland ay soo saartay waxay sidoo kale ku sheegtay in ay ku hakisay xiriirkii iyo wada hadaladii kala dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee muddo dheerba iskood hakad ugu jiray hadaba maanta waxa stuudiyaha BBC Soomaali martin ugu ah wakiilka Somaliland ee Nairobi mudane Maxamed Axmed Maxamuud Barawani Maxamed ku soo dhawow BBC waad maasanta maxadin marka ugu horeysaay war saxaafadeedka dabcan waan la arkay waxa ugu weyn ee dadku isweydiin karaan waxa weeye Xamse ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu tagay laascaanood magaalo hadda maamulkiinu aysan gacanta ku haynin oo ay magaalo maamul kala maamulaan maamulka SSC qaatuma la magac baxay maxaa ku diidan tihiin ama maxaa ku maagteen oo idinka caraysay walaal aad naxsantay maxadiin waxa weeyaan booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa ahayd mid runtii gardarra ah waxa ahayd dagaal waxa ahayd xadgudub ayay ahayd waxay ku ahayd Somaliland waxa laascaanood iyo dadka deegaanka Soomaaliland bay ka mid yihiin booqasho 4 casho qof ku tagay xuduudna laguma sameyn karo lagumana bedeli karo ciiduna ma aqoonsiga dhulka Somaliland ay leedahay 150 sano jiray 4 casho booqasho lagu tagay laguma sameyn karo dadka deegaanka tabashadooda iyo wada hadalkooda madaxweynaha Somaliland waa ka sheegay nabadgelyadooda ka shaqeynayna waa dad walaalahaya wadadan ehelnahay wax badan baa naga dhaxeeya dibtooda ma jecelin dadaalka dawladdu waday iyo dadaaladii la waday ayaa xamsiye dawladda Soomaaliya burburinayay xasan sheekh iyo xamsaan burburinayay waxay burburinayeen nabadii ibaka 3 bilood u dambeeyay laga shaqeynayay iyo horumarkii laga sameeyay ayay ka hortageen 3 bilood oo la soo dhaafay wixii laga shaqeynayay waa inoo sheegi doontaa Maxamed balse marka hore inta la wada og yahay oo xaqiiqada waxa weeye laascaanood maamul baa ka jira aanan idin aqbalsanayn oo Somaliland aan qayb ka ahayn oo si cad u sheegtay oo dawladda federaalka xiriir toos ah walaal maxadiin halkee ka soo galaysaa waxay Somaliland waa dhul weey ma ha shakhsiyaadka ku dhaxnoolo kaliya waxa weey xuduudda Somaliland imika waxay jirtaa in ka badan 140 sano marka wax maalin group waxay jeceliin ama waxay necab yihiin laguma bedeli karo hadii qofku wuxuu jeclaado oo loo sameeyo ama wuxuu necabayo diidiyo laga deynayo dawladdu sidan ma bay ahaateen waxa weyn Somaliland cufi caalamiya iyo xuduudo caalamiya iyo taariikh caalamiya ku fadhida hadii aad qofku jeclaado meel ama wax diido waa wax laga wada hadli karo khaatimo shalay baa la sameeyay waa laga wada hadlay ilaa naxariis Ali Khalifa hogaaminayay xagla toosay SSC waa laga wada hadlay waa la isku yimi tanna waa laga wada hadlay waxa ku hore kaga duwan tahay laga wada hadlay Somaliland midaysan in laga wada hadlo heshiisku dambeeyay naxariis Ali Khalifa iyo Silaayo wada galeen kama duwana marka dad markay meel degan yihiin muxeedii waxbay tawdaan Somaliland kelgeed gaar uma aha Ethiopia dad wax tabanayaan oo dagaal meel ka socdaan Suudaan baa la mida South Sudan baa la mida DRC baa la mida Soomaaliya al-shabaab barhaysata riijo kooda waxba ka jira gobolka mid ah marka in maxaa la yiraahdaa dadka deegaanka walaalaha laga abuuro xasaasiyad iyo maxaa la yiraahdaa isku dir
oo ay qolada muqdisho ka shaqeynayso maaha arrin runtii anagu aan aqbali karno arrin Soomaaliland weligeed aqbalaysa maaha laakiin dadkii deegaanka idin diidan maamul ma oran karto weydii ma xidhiidin aan ku sheego marka la dad wax diidan adduunka qofku intuu meel fariisto ma oran karo waxbaan diidi caalamku sidaa uma noola caalamka xeerar iyo nidaam baa haga waxweyn dadka cod bixin baa laga qaadaa referendum baa jira process baa jira qaab dadku haday wax diidayaan ama wax qaadanayaan loo maraa jira in dhowr boqol qof intay meel isku yimaadaan waxbaan diidno maamul baanu samaysanay ama meel baan ku biirnay saa adduunku ma dhaqmo haday sidaa loo wada dhaqmayo de beero hore xuduudahan waxna way baabil hayn waxaan anagu aan ka hadlayna inagu adigu ma sameyn anna ma sameyn waxaad jeceshaana lagu ma sameynayo taan jecelayna lagu ma sameynayo waxa lagu sameynayaa sidee cunfiga caalamka riijiga yaal muxuu yahay ma waxaan ka ahayn buu ayaa la shaqeyn karaa haddii nin walba meel sheegto dee nin walba markaa wuxuu doonayo hadduu samayn karayo wuu samayn lahaa laakiin cunfiga caalamka iyo nidaamka xeerarka caalamka kama bixi karno xamse ninka la yidhahdo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xasan sheekhna gef bay ku sameeyeen 34 sanadood maxay u tagi waayeen bal su'aal isweydii 34 sano masuulkii koobaad ma sug walaal waxaan ka dhiganaa 34 sano hore inay tagaan maxaa ka hortaagnaa waxaa laga yaabaa qolyaha ka horeeyay way ka xishoonayeen inay arrinta noocaas oo kala sameeyaan oo si bareer Soomaaliland loo weeraro oo dhulkeeda loo weeraro oo dadka deegaanka la isku diro marka xoogay Xamse iyo Xasan Sheekh waxay sameeyeen inay dadkii Soomaaliland ee walaalaha wax waa la kala tabanaya burca dagaal ka dhacay mar Hargeysa mar ka dhacay Berberu ka dhacay waa la heshiiyey Laascaanood intaas jeerbu ka dhacay Buuhoodlabo ka dhacay waa la heshiiyey cunfiga dadka wada yaala mar walba waxay ka dhaxdhacayaan Soomaaliland waxay u leedahay khibrad iyo awood gaar ah inay xalliso khilaafkeeda siyaasiga khilaafkeeda bulsho aan ku weydiiyo madane inta aan ognahay Laascaanood dawladda federaalka iyo Soomaaliland kuma dagaalamin waxa ku dagaalamay dadkii deegaanka joogay iyo ciidamadii Soomaaliland waana ka baxeen ciidamadii Soomaaliland sabab walba ay uga baxeen dagaalkii iyo xaqiiqadii dhacday ee isbedeshay ee maamul in laga dhisay intaas oo dhan waxa kama jiraan waxa weeyaan bulshada iyo ciidanku marar badan isku dhacaan maaha issue macnaha issue hore ka duwan waana kule ciidamada Soomaaliland way isku dhaceen beelaha burca isku dhaceen oo Gaaba isku dhaceen oo Hargeysa isku dhaceen oo Berbere isku dhaceen oo Laascaanood isku dhaceen wax la eg intii Laascaanood ma waadan wax laga taariikhda sadan haynin ana ku sheegaya taariikhda sadan haynin waa taariikh hore dhacday dhowr iskaashanada dhacday marka ciidamo meel jooga iyo dad deegaan way isku dhacaan dadku waxbay taban karaan aragti bay la iman karaan laakiin taa macnaheedu ma aha dhul iyo xuduudo iyo system jiray boqolaal sano baan intaan booqasho meel ku imaadaan waa id aqoonsaday wax ka jiri kara walaal taa male waxa weyn dadka reer Soomaaliland iyo dadka Laascaanood degan anagu mar walba waxaan u naqaanaa ama ay yihiin dadaan walaalnahay dadaan ehelnahay dadaan derisnahay ma kala maarmi karno waxa weyn Xasan Sheekh iyo maamulkiisu waxay ka wadaan dab bay ka hurnayaan nabadii madaxweynaha Soomaaliland ku dhawaaqay maalintii loo dhaariyay xilka 12 December ilaa maanta markuu hadlay u dambeysay wuxuu lahaa dadka walaalaanahay nabadaan ku dhawaaqina guddiyo sameeyay madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland ogtay inuu 3 bilood jooga bari wax kale uu jooga Sool buu jooga oo Sanaag buu jooga wuxuu ka shaqeynayaa nabadu ka shaqeynaya nabadaasay ka xuyeen qolada xamar fadhida nabadaas Xasan Sheekh Xamse baabiinaya wuxuu ka hadlay Xamse oo caalamka ka sheegay maradan shanta xidigood xitaa shanta xidigood waxay u taagan tahay anu waxa falay Xamse ma garanay markuu ka sheekeynayay waayo shanta xidigood Somali Republic magacii aan la baxnay 1960gii Soomaaliya ku gurto Soomaaliya la baxday haddana wali Xasan Sheekh wuxuu sheegtaa madaxweynaha Soomaaliyeed wax la Soomaaliyeed ma jiraan Soomaali waa itrig maxaliyada maxdiino calankaasna shantii group loo sameeyay waa la waayay Soomaha Soomaaliya xiddi quraha la baxdo afartii xiddigood ka saarto Soomaaliland way tagtay Djibouti way tagtay Kenya way tagtay Ethiopia way tagtay marka waxay dad aan taariikhdiina horena haynin wixii dhacay dhibaatooyinka dhacayna ogeyn oo aan mas'uuliyad ahayn baa shaqadan qabtay dawladnimadu xiddiin waxa weeye dawladnimadu waa mas'uuliyad haddii dawladnimadu mas'uuliyad la waado qofku marka ma sheegan kara dawlad marka ma oran karna imika xamar qolada ka shaqeynaysa inay dawlad inay sheegtaan dawlad baan unahay way mas'uuliyad hadday lahayn dawlad ma aha mas'uuliyadda soo hadal qaaday aan imaano dabcan Soomaaliland way ka talinaysay xilliyada kamid ah Laascaanood dagaal baa ka dhacay dadkii deegaanka idinku kacay maamulkiina diiday maamul kala sameystay madaxweyne doortay xildhibaano doortay wasiiro doortay dadku is doorashada iyo xuquuqda ee waxaas oo dhan ay dadaalayeen kama nihiin idin dhahay walaal horba way dhacday taaso dadku inay meesha wax ka dhacaan oo khilaaf ka dhaco laakiin dhulka Soomaaliland iyo xuduudka Soomaaliland anagu maanu samayn
adiguna ma sameyn xasan sheekhna ma sameyn xamsan ma sameyn dadka reer laascaanood ma sameyn adduunku waxa weeyaan adduunka cufiga jira haddii la bedelayo afrikada markii la isku la bedeli waay waanigi keera lagu shiro waxa la miyaan bedelna xuduudii waxa la ma bedeli karno marka haddii qabiil kasta wuxuu doonaya sameyn karo ama gobol kasta dee afrika nin walba wuxuu jecel yahay meel uu tago annaga nin walba qaar tulkiisa xuduud kala jooga marka maxaa la yiraahdaa in dadku intay meel yimaadaan yiraahdaan meel kale ku biirnay dee dhulkii bay ku jiraan dhulka Soomaaliland ma aha qabiilo gaar ma degaan ama qabiil gaar ma dego waa xuduud marka laga hadlayo lagama hadlayo dad ku dhex nool kaliya anigu waxaan ka hadlaynaa territory macnaheedu waxa weeyaan inta xuduudaas maamusho waana loogeey territoryga Soomaaliland maab kasto Afrikaana uu ku yaala cid kastana way ogtahay maalintii xamar la isugu yimi Soomaaliland ma aan hayn qoladana Soomaaliya deehayd marka waxay labadii baa lagu kala joogaa xuduudka midna ma bedeli karo dawladii Soomaaliya ku daray waliba dawladii Soomaaliya kala dambeeyay midna xuduudka laascaanood iyo ceergaabo iyo gobolada bariga Soomaaliland midna tuulo kama bedelin sidii ay u ahaayeen maxaa la 1918 maxaa la loo sameeyay xilliga xuduudka la sameeyay ayay xuduudaas yihiin cidina ma taaban karto marka ma waxa leedahay mudane SSC qaatumo iyo bulshada laascaanood annaka inagu qasban yihiin meel nagama aadi karayaan waana qasaban ku haynayna ma su'aashu sida ma hadii meesha dhacaan oo dadku wax kala tawdaan oo wax ka dhacaan wada hadal baa meesha yaala wada hadalku watana wadna anagu weeyaan dawladda Soomaaliya waxay soo wada hadal marka deerta qofna ma oran karno wada hadal ma rabno qofna keligii meel isku soo xidho qof keligii oran kara wax cid lama hadlay ma jiro dunida waxa weeyaan wada hadalka dawladda Soomaaliland wado ee lagu nabadeenay deegaanka laascaanood ee walaaltinimadii dadka wixii ku dhacay lagu horumarinayo waa talawada ee madaxweynuhu gudida u magacaabay ee madaxweynuhu ku joogo ee dadkii reerii Maleeshiiskii hubka qaatay laga soo celiyay taas weeyii dadku markay wada hadlaan hal isla gaaro marka waxa la isku raaco laakiin qofna keligii intuu meel yimaado ma oran kara anigu taasaan sameeyay dawladda Soomaaliya ku sheegaya dawladda Soomaaliya soo ka badan inta Soomaaliya aan qaatuma ka hadalno maamulka meesha ka taliya laascaanood ka taliya waan ku gartay walaa waxa weeyaan arintan ma aha arin maanta qura dhacday ilaa sad laba jeer hore way dhacday waa laga wada hadlay hada faanta Ali Khalifa ilaa naxariiso qofkii ugu mudnaa eeriyadoo dhan ayaa hogaaminay Khaatumo de waa laga wada heshiis baa laga galay heshiiskina uu yaala maanta hada faanta Soomaaliland 1991 markii lagu dhawaaqay waxa weeyaan garaadka guud ee dhulbahantay ayaa saxiixay ama beelaha deegaanka gobolka Sool hada faanta dawladdu markaa ma aha qofku markuu doono inuu wax sameyn karo oo wax ka noqon karo waxa weey waa cunfi iyo nidaam iyo hab haddaad ka baxaysan qofka hab uu bixi karaa haddii doonaysa inay ku baxaan marka haday hab ay ku baxaan ay tahay inuu jiro habkee rabtaa inay kaga baxaan hab lagu baxaya ma jiro habka lagu baxaya waxa weeye horta dhulkan Soomaaliya dadkan wada degaa cid dhul gaar ah ma jirto waxa weeye deegaanka dadka gobolka Sool degay iyo Buuhoodle dad kale wada deegaanku xuduud ma kala laha dad walaalaa oo darisa oo isdhalay weeye xuduudna looma kala sameyn karto haddii aysan doonayn Soomaaliya sidee uga bixi wala dhigisay marka xubin xudiinow hadalkan imika marka xamsa meesha ka dhawaaqay uu leeyahay afarta casho joogay dee afar casho xuduud laguma sameeyo laguma sameyn karo laakiin qaatuma afartiisa casho ka horeysay maamulka qaatuma dadka inay ismaamulaan issue wan ma maqbalsantiidin marka dadka inay ismaamulaan dadka hawlba ismaamulayeen hawlba qof reer Soola iyo dad reer Soola ayaa laascaanood ka talniyay iyaga maamulayay iyaga maamulka lahaa horumarkii la sameeyay iyaga hogaaminayay siyaasadii iyaga hogaaminayay ciidamadii iyaga hogaaminayay wilna ciidamadii iyo siyaasadii intaba reer Sool wasiiradii iyo baarlamaanka iyo ciidanka intaba way leeyihiin shalayna taas oo kale way dhacday marka arintan imika qolada Soomaaliya ayaa runtii siyaasadaysay oo dadka walaalada deegaanka isku diraysa Somaliland iyo Soomaaliya halka waxa dhaafisano ka sokayn kara walaal ma jiraan Somaliland way ku dhawaaqday dawladnimo 1991 Soomaaliya waxa weyn waxay ku dhawaaqday ma waxaanu sameeynay buu ahaa mise wax jiri buu ahaa adigaan ku weydiiyo mudane Axmed Barwani inta aan ognahay dadka qaatumo hal aan ahayn hadii aysan doonaynin inay qayb ka noqdaan Somaliland sida ay sheegeen ba ay kor u dhaheen hadii aysan doonayn inay Somaliland qayb ka noqdaan jid walaal ay idinkaga tagaan oo ku aqbashaan walaal dorta adigu ma oran kartid cod bixin laga ma qaadintay dadka marka cod bixin laga qaado codbixintii Soomaaliland laga qaaday 2001 boqolkiiba 79 waxay Soomaaliland waxay dawladnimada kala soo noqotay Somali Republic dibna uga mid ma aha taas codbixin sharci adduunka ugu dambeysay eriyada wataan Soomaaliya marka lama codeynin laascaanood deerta dhigisay waa eriya badan oo kamid ah laga codeeyay marka lama oran karo in gruubo siyaasiyiin meel jooga inay dadkoo dhan matalaan dadkoo dhan ma matali karaan yaa u aragtaa marka inay matalaan deerta dhigisay marka hadii la doonayo in laga hadlo arrimaha horta marka hore wax ka hore dadku inay wada hadlaan
wada hadalka waxba ka soo bixi kara anu ma imika wada hadalka waxa ka soo bixi ma oranayo laakiin wada hadalka dawladda Soomaaliland ay already wado ee gogoshay fidisay ee nabadda anigu waxaan aaminsanahay in nabad la dhaliyo ganacsiga la furo dadka maxalliga walaaltinimadooda lagu soo celiyo tensionka la dajiyo intaas dawladda Soomaaliland ka shaqeynaysa anu colaad kama shaqeynayno laakiin waxa colaad ka shaqeynaya ninka intuu xamar ka soo cararay diyaaradii laascaanood ka soo degay 34 sano qof Soomaali ka yimid halka ka soo degin ayuu yimid oo macna maxaa la yiraahdaa laascaanood soo degay wuxuu soo degay maxay 30 sano ka hor loo iman waayay wuxuu soo degay fidmu ka kiciyay meesha nabadii aan wadnay buu baabiyay ninka Xasan Sheekh iyo Xamsi iyagana mas'uuliyadda ka dhalata iyaga leh waa kii madaxweynaha Soomaaliland sheegay inay ka mas'uuliyad waxa ka yimaadeen waxa tiri waxaynu aqbalsanahay in wada hadal la wada galo wada hadalkana waxa ka soo baxaya anigu ma jangoynayo tiri hadalkaaga intii ugu dambeysay marka ma aqbalsantiin Soomaaliland hadaa tihiin in qaatumo SSC qaatumo la gashaan wada hadal ay ku doonayaan inay Soomaaliland uga baxaan si lamida sida adinku u doonayseen xilliyada kamid ah inaan Muqdisho la yeelataan wada hadal Soomaaliya uga baxaysan anagu dadka deegaanka sidaan ku sheegay markasta dawladda Soomaaliland waxay ay dabada ka riixaysay oo waday in dadkaas deegaanka degay reer Soomaaliland iyo dawladooda iyo dadkii kale deegaanada ay wada hadlaan marnaba wada hadalka albaabkooda halka wax furan wax xiraan ma ahayn wada hadal anagu dadka deegaanka wada hadal ay qayb kaga noqonayaan mid u furan inay ka bixi karaan ama ayahooda ka shaqeeyaan taa lama jaangooyo marka wada hadal marka la hadal natiijadiisa lama sheego oo taas runtii cunfiga kuma fiicna dawladda Soomaaliland mar walba waxay gogol bay fidisay horena way u waday imikana madaxweynaha cusub runtii xoog buu xoojiyay odayaal buu diray ganacsato diray salaad cid walba runtii way ka shaqeynaysaa marka waxay in horta nabad la dhaliyo dadku nabad helaan deegaanku nabad helo la isu socdo ganacsiga la furo ayaa meesha taala marka sidaas oo kale tension iyo caadifad horeba way dhacday waa laga wada hadlay waa la heshiiyay dadka waxa weeyaan deegaan laascaanood ama deegaanka ka soo jeeda dawladda Soomaaliland qayb bay ka yihiin horena way ugu ahaayeen wayna ka ahaan doonaan deegaanka Soomaaliland marba inta laga soo duulo maxaa la yiraahdaa qof maamul xamar ka haya oo ninkii shalay tago kale walaal waxba kama bedeli karo inta timaado meel tension iyo colaad ka dhaceen oo baahan la nabadeeyo inaad adiga sii kordhiso oo dadkii isku dirto deegaanka ah waxa weyn waa runtii arrin mas'uuliyad darra aniga marka waxaan dawladda Soomaaliya mas'uuliyad darra ka muuqata talaabooyinka ay qaadayaan arrinka duulaanka soo hadal qaaday ee ku eedeysa dawladda federaalka dabcan Xamse intuu sameeyay tagin laascaanood waxba ka dhacay dadka deegaanka odayaasha dhaqanka nimanka hormuudka u ah SSC qaatumo iyo bulshada rayidka dadka laascaanood joogay adinka Soomaaliland idinku eedeynayaan inaan ku soo duusheen dadka layseen tactiyaga geysateen xamar waxay geysatay oo laascaanood ka geysatay ma aragno ilaa hadda taa ayaa u saarinaysa maya anagu runtii wixii meesha ka dhacay iyo isku dhici ka dhacay shacabka iyo ciidamada taa waa la wada ogaa oo runtii wax anaguna doonayeen ma ahayn iyaguna may doonin laakiin waa deerta dhegeysatay waana wax runtii dhaca waxaan ka dhacay halkan maaha halkan qura ka dhacay waan ku sheegay khilaafaadka isku dhaca meelo badan bay ka dhaceen gobolada Soomaaliland waa laga heshiiyay tanna waa laga heshiinaya laakiin waxa runtii heshiiska iyo nabadgelyada walaaltinimada xumeynaya qofaan meel la ka soo gelin Soomaalidu ku maamada niman ku rarayn niman ku furan iyo ku rarin waxa weyn Xamsan nabad kama keeni kara laascaanood wuxuu ka tari kara male nabadda dadka deegaanka ee walaalaha ee meesha deegaan bay ku xiran tahay inay iyagu heshiiyaan nin xamar joogan waxba kama tari karo waxna uma qaban karo tacadiga iyo duulaanka ay dadka deegaanka idin ka tirsanayaan oo aysan xamar ka tirsanaynin iyo Xamse iyo dawladda federaalka taa maxaa ka leedahay waxana waa propaganda walan oo wax saxaafada laga leeyahay waxana waa wixii isku dhacay ciidankii meesha deegaanka dadka shacabka isku dhaceen ciidan meel dabada ka soo duulayna ma ahayn ciidan 20 sano meesha deegaanka joogay buu ahaa si ka soo dhacay isagii dadkii baa isku dhacay ciidanku ka baxay meesha waa tan soo ma laakiin meesha waxa taala khibrad baa khilaafaad kan dhacay isku dhacyada Soomaaliland khibrad badan bay u leedahay khibradii waa tan la wada in wixii la xaliyo in dadkii la walaaleeyo marka ninka ku soo duulay isagu yimid laascaanood ma nabad wax ku soo koriyay mas'uulaadda ma nabad wax ku soo koriyay Xasan Xamse xabad lama tagin laascaanood iyo dawladda federaalka eedii adinka xaqiina la idin tirinayo ciidamadii Soomaaliland ee arinkii meesha ka dhacay qaybta ka ahaa maxaa ka yeelaysan taa wixii wada hadalka iyo dadka walaaleyntoodii in laga wada hadlo waa waxaan ka hadlaynaa kuleen nabadda la xeejinaya laakiin nabadda waxa lagu burburinaya in la siyaasadeeyo waxa weeye marka qolada Soomaaliya nabadii iyo dadaalkii nabadda ee aan ku sheegay madaxweynaha Ceergaab uu fadhiyay oo Sool buu fadhiyay Xamsa burburiyay oo provocation abuuray oo dagaal Soomaaliland ku soo qaaday oo xuduudda Soomaaliland ku soo xadgudbay waxa weeye qofkii koowaad xuduudda Soomaaliland yimaado weeye maxaa keenay maxay walaal ka soo dooneen waxa weeyaan dadka deegaanku iyaga suran waxba uma tarayn xamar jooga waxba laascaanood kama tarayo laascaanood iyo buuhood iyo caynab iyo burcaye berberi argas iyaga suran iyo Ceergaab dadku iyaga wada dega iyaga dad walaala iyaga dad hela marka qof meel kale ka yimi waxba ma qabanayo
mana Soomaaliland weligeedna aqbali mayso in xuduudda Soomaaliland cid ku jirta ama maxaa la yiraahdaa dawladda Soomaaliya inay soo farageliso dadka wada jooga iyaga wada hadli way mudane Axmed sida hadda leedahay ma ogolaanaysaan inta aad u aragtaan xuduudiina in ay cid kale soo farageliso maxaa dawladnimadu jirta wala markaan ku weydiiyo su'aasha laakiin dadku deegaanka uma arkaan in adinka idinka tirsan yihiin laakiin taa waxa meesha barbar yaala oo meesha socdaahi muddo 30 sano ah waxaad raadinaysaan jidkii aad Soomaaliya ugu ilaahadeen aqoonsi baad ka rabtaan Soomaaliyana way idin sheeganaysaa inta sida adinku dhaxdaanba waa ina sheegataa ee naga mataliso maanta adinku qaatuma kama talisaan laakiin waa sheeganaysaan labada sheegasho midee sax anigu ku saxorta hore anigu Soomaaliya kama go'ayno aan kalmada ku saxo waxa weeyaan Soomaaliya anaga naga go'aysaa way anaga Barn State-kiya anaga xornimada hor qaadanay anaga xornimadii qaadanay iyaga u nimi laakiin maanta cid aqoonsiga raadinaysa adinka waa dhageysadee aqoonsi dadku haday igu aqoonsan yihiin dawladnimadooda iyo nabadooda wadaan waxa weeyaan aqoonsiga xamar wuu joogaa nabadna kuma joogo amnina kuma joogo dadkiina dhibaatada maalmo haysta weyn ognahay halka maanta xaaladdu maraysa waan ognahay 30 sano aqoonsiga magaca way sheeganayeen marka dawladnimadu waxa loo yaqaan jurisdiction ma waa empirical oo macnaheedu yahay maxaa xaqiiqay meesha ka jirta adduunkuna xaqiiqadun buu la dheel garanaya Soomaaliland dadkeeda aqoonsan adduunkuna wuu aqoonsay inay kursi un bayna fadhiin laakiin ay tahay system jira iyo xuduud jira waayo warbixintii African Union ku sameeyay 2005 waxay ku cadeeyeen Soomaaliland iyo Soomaaliya weligeed heshiis u dhaxmarin marka su'aasheedii u soo noqon sharci inuu jirin waxa la yiraahdo oo Soomaaliland ku heshiiyeen marka waxa weeyaan sheegashada wayna wax baysa leedahay haddii Soomaaliland sheeganaysa wax baysa sharciya ma leh wax siyaasiyana ma leh taariikhna ma leh waayo markaad eegto wax markii la isku yimi waxba wala lagu meeshin marka haddii arinta kala barbar dhigto laba keeso isku nooc walaal maaha waxa weeyaan Soomaaliland waxay dal maxaa la yiraahdaa 70 sano ay maxamiyad Ingiriis joogtay waana sida Afrika lagu sameeyay dadka qaar baa leh Colombo waxa laga hadlayaa gumaysiga Afrika isaga sameeyay maada Soomaaliya sameeyay Talyaaniga 1905 ku sameeyay magaca Soomaaliya sameeyay digreetiyada waxa lagu sameeyay hada faanti magaca Soomaaliland British Britain ee Ingiriiska sameeyay marka inagu waan jeclaan lahayn sababtii Soomaaliland markii la joogay 1960 wala loo yimi xamar ee caalamka loo siday wuxuu ahaa Soomaaliduna dheeraan su keeno laakiin taas cunfiga caalamiga ka hortimay xuduudii la sameeyay baa socon waayay NFD waan weynay Ethiopia waan weynay Djibouti waan weynay marka wixii cunfiga caalamka aanu qaadan karayn de ma sameyn kartid marka anagu argumentan ku doodana maaha sheegasho maaha anagu waxaan ku doodanaa wax sharci iyo taariikh iyo wax jira aan ku weydiiyo marka maanta markii laga hadlayo qaatumo ma aqbalsantihiin laascaanood magaalo aydan ka talinin maamul leh oo adinku aydan maanta tala ku lahayn inaa sheeganayso taa wala la ku celcelin maxaydiin imisa dawladaha meelaha imisa gobol baa dagaal wax ka dhaceen ama jabhadu qabsatay DRC ba qayb jabhadu ka talisaa soo ma hadee jamhad miya oo aragtaa oo Malaysia joogaantay marka xooyin in dad meel ay isugu yimaadaan taa macnaheedu ma aha in dalkii aad ka go'i karto ama iska tagi karto manaha wax 2 sano lagu sameyn karo wax 150 sano jiray 2 sanadood iyo 4 maalmood booqasho wax wala lagu bedeli karo ma oo 2003 dhibaatadii ka dhacday meesha iyo onwards waxyaabii ka dhashay wax bedeli karo ma laakiin anagu markasta Soomaaliya waxay taagan tahay inaan wada hadallo dadka wadadan walaalnahay waa ehelkayo inaan abtigi baan nahay inaan nabad ku wada noolaano waxyaabii marka dambe laga wada hadlayaan sidii horeba laga wada hadlay waa xagla toosiyay jabada SCB hogaaminay Cali Khaliif hogaaminay Khaatumo waa laga heshiiyay waa laga wada hadlay xaglato soo kii wasiirka noqday Ali Xalif ilaawna xasawa kii maxaa la yiraahdaa Soomaaliland joogay marka dadku way wada hadlayaan caadifaduna way iska dhamaan way ugu hal su'aalan ku weydiiyo marka waxa iswaafajisaa dareenka iyo doodiina Soomaaliland ee dadka Soomaaliland waa in loo ogolaadaa inay ayahooda ayaga ka taliyaan oo ay ka madax banaanaan Soomaaliya iyo dooda qaatumo nagama tagi karto nagama go'i karto meel kale ma raaci karayso Soomaaliland ay ku qasbantahay walaal waxa loo yaqaan self determination-ka ay ka talintu deen hab loo maray buu leeyahay oo de international loogu uu qeexayo marka dadku doonayaan inay sameeyaan self determination waxa jira shuruudo ay buuxiyaan marka haddaadan shuruudii buuxin ma oran kartid waxaan sameeynaa self determination marka anagu waxaan aaminsanahay in dadka deegaanku nabad ku wada noolaadaan dad walaalaa yihiin la nabadeeyo Soomaaliya xasarada ka dayso duulaanka ka dayso waxa weeyaan wixii ay ka sameeyeen meesha ay ka hadlayeen xitaa in kamidu taariikhdana ma hayaan be contagaska ama meesha taageen waxba kama fahansana social political kana war uma hayaan marka qofku markuu wixii oo dhan ka maray runtii inuu meel iska tago
wax macna ay sameynaysaa marka anigu runtii waxaan u aragnaa nabadda iyo momentumka la wado in Soomaaliya ay ka joojiso dhibaatada ay ka wado gobolka Laascaanood iyo in dadka reer Soomaaliland isku dirto waxaad dhahdeen wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland u dhaxeeyay waan hakinay waan ka baxnay qaybna kama noqonayno sidee doonaysaan inaad ku gaartaan marka wixii aad baad goobayseen ee ahaa inaad la idin aqoonsado oo si sharciyan ah Soomaaliya ku kala baxdaan wadahadalku waa one of the options in waxa laba qaybood loo kala saaray dawladaha mid waxa loo kala baxaa wax la bilateral oo waxa weyn labadii daraf ay maxaa la yiraahdaa ay ka wada hadlaan labadii daraf inay ku heshiiyaan oo bilateral ay sameeyaan agreement midna waxa weyn waa unilateral oo adoo aadan darafkii hore waxba ku heshiin sida Kosovo oo 120 aqoonsan yihiin baad iska baxaysaa aad hawlahaaga wadanaysaa Soomaaliland wada hadalka xoog jeeday nabadgelyo iyo in si nabad loo kala baxo maadaama wax badan oo 30 sano Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhaxeeyay oo hanti ka mid hantidii inta badan iyagu ay qaateen oo ay sheegtaan in si nabad loo kala baxo la xisaabtamo ayaa wada hadalka macnihiisu ahaa marka hadii ay markaa mas'uuliyadii ka soo bixi kari waayeen oo Soomaaliland maalinba farigelin ku sameeyaan oo taa u dambeysay Xamsa imka sameeyay sanad ku tagay ka mid tahay oo ayna mas'uuliyad ka muuqan muxuu wada hadal ku soconaya madan gunaanadkan ba joognaa si kooban bal dadka Soomaaliland ee muddada 30 sano ah oo hanqal taagay in aqoonsi helaan dunida iyo beesha caalamka dhexdeeda u sheeg adinkoo Soomaaliya la hadlin sida aad dadka ka qaadaysan iyo halka aqoonsiga aan fasirno walaal muxiitiin waxa weyn dadka reer Soomaaliland waxay u dagaalamayeen nabadgelyo iyo xornimo iyo dawladnimo intaba way hayaan maxaa ka dhiman waxa ka dhiman inay kursiga United Nations Africa ka fadhiisan Soomaa maalin kamid way fadhiisan doonaan Soomaaliland maanta waxay ka mustaqbal weyn tahay oo aad ogtahay Afrika oo dhan iyo adduunka inay dimuqraadiyad iyo dawladnimada ugu horeyso kuwa badan oo maxaa la aqoonsiyo dhijuura ay dadka reer Soomaaliland iyo Soomaaliland ka mustaqbal fiican tahay marka macnaheedu ma aha in UN ka fadhiyo baan dawlad noqonay xamar bay kursiga UN ka way fadhida xaaladeedan way noqon maanta al-shabaab ama Afrika koon xamar ka taagan xaaladii ay ku jireen way noqon dawlado kala badan way jiraan marka macnaheedu ma aha kursiga UN ka la fadhiisan doonaa dadka ay dhibaato u gaaraysa Soomaaliland dadkeedu inay waxbarasho xornimo dawladnimo helaan way hayaan wixii ka dhiman waa la gaari doonaa sidee lagu gaaraa waxa lagu gaaraa waxa weyn kuma xirna in Muqdisho ay Soomaaliland tiraado waan aqoonsaday sidaan ku sheegay waa options ku kaasoo qorama options kala badan Soomaaliland haysata marka kuwa waxa kamid ah saan ku sheegay marna waa unilateral marna waa bilateral Soomaaliland unilaterally waxa haystaa sharciyan iyo siyaasiyan iyo taariikhiyan in dawladnimadeeda adduunka ay kursiga qaramada fadhiisato waayo hadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu dambeyn qaatuma maamul ee aqoonsatay waana diidantidiin inaad war soo saarteen oo ka hadasheen maxaa kala qaban kartaa walaal waa dagaal ifad qalalo waxa weyn aqoonsiga sheegayaan maxaa ka qaban kartaa ma oran kartid su'aasha ma oran kartid waxa weeyaan deegaanka Laascaanood deegaanka Soomaaliland mu kamid yahay waana wada degnaa anu dadka deegaankayga mar walba waan dhawrina saan ku sheegay laakiin talaabada ay qaadeen waa talaabo loogu talagalay nabadgelyada in lagu burburiyo ma talaabo wuxuu taraysa dadka deegaanka waana arki doonta umana tari doonta ugu dambeyn walaac meedin ku haysa meelo kale oo Soomaaliland kamid ah in sidaas oo kale wax uga dhacaan oo dawladda Soomaaliya faragelin iyo maamul ay u sameeyso hadii ay ku talagaleen in iyagu inay saan sheegay in mas'uuliyad dawlad ma lahayn qofku markuu mas'uul ahayn wuxuu doono sameyn karaa marka hadduu dawladnimadu waxa ka dhashay mas'uuliyad hadday iyagu aan mas'uuliyiin ahayn qofka hadduu mas'uuliyin wuxuu doono sameyn karaa anigu taa kuma dari karo laakiin anigu waxaan aaminsanahay in ay mas'uuliyad qaadaan oo faragelinta iyo carqaladaha ka daayaan deegaamada aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa wakiilka Somaliland magaalada Nairobi oo inugu waramayay stuudiyaha BBC Somali aad baad u mahadsantiin daawadayaal waa inoo kulan kale mahadsanidin